iyadoo caawa iska hor imaanayaan Arsenal iyo Man United kulan ka tirsan horyaalka Premier League waxa aad loo hadal hayaa waliba sheeko xiiso badan abuurtay waraysi uu bixiyay tababare Mikel Arteta oo ku aadan seeflaboodkii hore kooxda Red Devils Sir Alex Ferguson. Mikel Arteta ayaa dabool ka qaaday sida macallinkii hore Manchester Sir Alex Ferguson ugu caawiyay in Arsenal noqoto kooxda hoggaanka horyaalka Premier League haysa sidoo kale dagaalka adag ugu jirta inay ku guuleysato horyaalkoodii ugu horeeyay muddo 19 sano kadib. Arteta waxa uu tibaaxay in hal bog oo kamid ah falsafadii Ferguson ay tahay mid uu shaqal kaga qaatay waayihiisa macallinimo iyo xidignimaba. Taageerayaasha inta badan waxa ay jecel yihiin inay daawadaan macallin Sir Alex Ferguson oo hogaaminaya naadiga Manchester balse waayahaasi waa ay soo dhamaadeen. Manchester oo dhibaatooyin badan dareemaysa ayuu qabtay waxaana uu ka saaray koob la'aanta isagoo taariikh aan la iloobin ku sameeyay u yiri macallin Mikel Arteta. sanadkii 2011 ayaa Arsenal booqatay garoonka Old Trafford iyadoo Mikel Arteta uu ahaa xidig ku soo bilowday kadka dhexe kulankaasi. Arteta ayaa ka soo kooxda Everton wuxuuna baadil kala kulmay kooxda Manchester kulankiisa ugu horeeyay Arsenal oo wajaho ciyaar ku dhamaatay 8 gool iyo 2 gool. wuxuu daawanayay Man United oo ku guuleysanaysa 13 horyaal waagii uu joogay Everton macallin uu ahaa naadiga Manchester macallin Sir Alex Ferguson. anigu waxa isoo jiitay feejignaantiisa habdhaqankiisa iyo sida uu hadli jiray. wuxuu daacad u ahaa wax waliba kubadda cagta wuxuu runta u sheegi jiray ciyaartoydiisa arrimaha qaarkood ee ku aadan kooxda iyo arrimaha qaas ku ah. inta badan waxaan arki jiray sharaxaadiisa sirta ugu badan ee ka dhaxlay ayaa waxay ahayd in aan noqdo sida isaga oo kale oo aan qaato fikradiisa. waqtiyo kooban ayaan la sheekaystay Ferguson wax badan ayuu ii sheegay dadku marka uu dhageysanayo iyo intuu hadlayo wax badan inta uu markaa ku dhageysanayo. Arteta wuxuu ku soo biiray Arsenal 3 maalmood ka hor baadilaadii 8 gool 2 gool ahayd ee kooxda Manchester u geystay kooxda Gunners 28 Agoosto 2021 ayuu noqday macallinka Arsenal waxaana uu sameeyay wacdaro oo xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay kooxda Arsenal wuxuu kula guuleystay koobka FA Cup-ka. duruufuhu mararka qaarkood waxay ku siinayaan fursado nasiib daradana waxay mar walba ku baraysaa cashir. waxay ahayd waqti aan wanaagsaneyn maalinkaas aad baan ula cajabay natiijadu waxay ahayd mid aan la qaadan karin waqtiga aan kooxda ku sugnaa balse waan ka soo gudubnay. kadib maalinka iyo wixii ka dambeeyay waxaan bartay casharo badan oo ku aadan Sir Alex Ferguson. macallinka Arsenal Mikel Arteta muddo ayuu ahaa macallinka xigeenka kooxda Man City tan iyo December 2019 kadibna waxaa loo magacaabay kooxda Arsenal. inta wixii ka dambeeyay waxa uu muujiyay in uu qaatay taladii Ferguson ama wadadii Ferguson inuu ku socdo sabab la xiriirta waxa uu ceeriyay xidigihii waaweynaa ee kooxda Arsenal sida Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil iyo kuwo kale oo Arsenal ka ahaa xidiga muhiim ah maadaama dhaqankooda iyo qaabkooda uusan fahmin. Ferguson waxa lagu garan jiray in xidigaha iska qaadka badan ee kibirka uu ku jiro in runta uu sheego waliba si kul u hadlo isagoo muujinaya inuu awoodda kooxda yahay. Arteta ayaa waxa uu tibaaxay in Ferguson waayihiisa nololeed ee ku aadan kubadda cagta haddii ahaan xidignimadiisa iyo macallinimadiisa uu ahaa mid wax badan ka bedelay. Mikel wuxuu maanta kooxdiisa kala soo muuqanaya kulan xiiso badan oo ay ka hor imaanayaan kooxda Arsenal. saxiix cusub ee Arsenal ninka lagu magacaabo Nathaniel Ake ayaa markaa ka soo muuqan kara kulankaasi ka oo 11 ugu fadhiyo oo macallin Mikel Arteta u arko xidig wax badan kooxda ku soo kordhin kara. Arteta kooxdiisa waxay haysaa hoggaanka horyaalka Premier League waxaana ay doonaysaa inay ku guuleystaan horyaalka. sheekadan ayaa wax ciwaan looga dhigay Sir Alex Ferguson oo garab weyn ka siiyay macallin Mikel Arteta sidii uu u noqon lahaa macallin ku guuleystay horyaalka Premier League. waana sheeko cajiib maadaama kooxda uu ka yahay halyeeyga ee Manchester United haatan ay soo wajahayaan kooxda Arsenal. haddii ay dhacdo caawa in la garaaco kooxda Manchester taasi waxay noqon doontaa sheeko cajiib oo ay hadal hayaan taageerayaasha kooxda Manchester United. fadlan ku soo biir bartan oo lagu saaxiib si aad u hesho warbixino kala duwan ciyaaraha.